madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ambassadorka EU-da wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ciyaaraha wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga dhammaantiin marti sharafta kale ama jananka ciidamada badda ee Somaliland ambassadorka ama admiralka EU-da dhammaantiin iyo marti sharafka aan ka soo qayb gashay dhammaantood waxaan leeyahay waa idin salaamaya nin walba masabkiisa ayaan ku salaamaya maanta runtii waa maalin farxad noo ah waa kulan ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee ka dhacaya Berbera oo ah kulan taariikhi ah waxaan marka hore dhammaantiin idinku soo dhaweynaynaa gobolka mashruucaasi waa mashruuc aanu ka faa'iideysan doono insha allahu ka gobol ahaan baanu uga faa'iideysan doonaa waxyaabo badanna uu noo tari doonaa dadku marka ay wax wada qabsadaan ayay dadyowga kalena kaalmeeyaan wadajirka iyo isku xidhnaanshaha heer gobol heer degmo iyo heer qaran baan isku xidhnay buu ilaahay ku soo geliyey inuu kana maanta inoogu yimaado waxay nooga tari doonaan howlahaasi dhowr qodob xagga shaqo abuurka waxbay nooga tari doonaan dhalinyarteenu shaqo ay heli doonaan waxay nooga tari doonaa baahiyo badan oo aynu maanta aragno oo gaar ahaan magaaladeena Berbera gudaheega ka dhaca ayuu wax badan inooga tari doonaa oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan waxaad arkayseen in mar walba marka roobku da'an aynu shaqaalaheena dowladda hoose ama iyadoo dowladda u kala hadhin aynu la kadeedana biyaha magaalada ku dhex jira sidii loo saari lahaa kolla kuwa badda soo galay looga celin karo looga saari lahaa insha Allah waxaynu filaynaa inaynu taa ka bogsan doono oo aynu si wada jira arrintaa u fushan doono xisaabaadkaagu kolka horeba deeqda timaada Berbera oo kaliya kuma ekaato waxay ku ekaataa gobolka oo dhan waxay ka muuqataa dalka oo dhan bay ka muuqataa waxaynu nahay albaabkii laga soo galayay ee dakhliga inta ugu badan dalka ka soo galayay waxaynu nahay albaab in badan oo ajnabi ah ka soo galaysa waxay noo imanayaa dalxiisayaal fara badan xagga dalxiiska wax fiican bay ka tari doontaa insha Allah oo dadka ajnabiga waynu ku soo dhaweyn doonaa annagana ka maamul gobol ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu soo dhaweysano cid kasta oo waxay noo qabanaysa cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa inoo timaada kii dalxiisahan aanu soo dhaweysano ka gacanna siinayaanu soo dhaweysano aad iyo aad baan ku soo u yahan maxaan ku idinku mahadcelinaynaa soo dhawaadaanu leenahay salaam